ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Dr. Abiy Ahmed oo booqasho ku jooga dalkan Mareykanka ayaa la kulmay jaaliyadaha kala duwan ee dalkaasi ka soo jeeda waxaana uu jimcihii shalay la kulmay jaaliyada muslimiinta Itoobiya. Faahfaahinta warkan waxaa inoo haya Xuseen Barre. Ra'iisul wasaaraha Itoobiya Dr. Abiy Ahmed ayaa kulan gaar ah la yeeshay muslimiinta dalka Itoobiya ee ku nool dalkan Mareykanka. Ra'iisul wasaaraha ayaa sheegay in diinta Islaamku ay tahay diin ku salaysan nabadda iyo wada noolaanshaha waxaana uu tusaale u soo qaatay salaanta diinta Islaamka. Mariya itanagarku taasab assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh malat Islam salam Islam rahmat Islam barakat. Ugu horeyn markaan Islaamka ka hadlayo waxa maskaxdayda ku soo dhacaya waa salaanta Islaamka ee assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. taasi oo macnaheedu tahay in Islaamku uu yahay nabad iyo barakad. Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed ayaa sidoo kale sheegay in muslimiinta geeska Afrika gaar ahaan muslimiinta Itoobiya ay waxyaabo badan bari karaan muslimiinta kale ee dunida. waxaana uu tusaale u soo qaatay kulankii uu dhawaan la yeeshay dhaxal sugaha Imaaraadka Sheikh Mohammed ibn Zayed. ሰሞኑን United Arab Emirates ከሼክ መሐመድ ቢን ዛይድ ጋር ስንወያይ ኢትዮጵያ ውስጥ የእስልምና ኢንስቲትዩት መክፈት እናስባለን ምን ታግዘናል አልኩት ብዙ እናግዛችኋለን ምን ትፈልጋላችሁ ማስተማርም እናስባለን አለኝ አይ እንድታስተምሩን አንፈልግም እናንተ ዲን ጠፍቶባችኋል እኛ ያሰብን ያለነው ቶሎ ብለን አረብኛ dhawaan markaan la kulmay dhaxal sugaha Imaaraadka Sheikh Mohammed bin Zayed ee aan ka wada hadalnay sida ay Imaaraadku noo caawin karaan waxaan u sheegnay inaan u baahanahay inaan furno xarumo lagu barto diinta waxaan weydiiyay waxa ay nagu caawin karaan dhaxal sugaha Imaaraadku waxa uu sheegay inay diyaar u yihiin inay na caawiyaan isagoo sheegay inay naga caawinayaan dhinaca diinta balse waxaan u sheegay buu yiri ra'iisul wasaaraha Itoobiya uma baahnin inaad diinta na bartaan sababtoo ah waxaad ka leexateen jidkii diinta balse waxaan diyaar u nahay inaan luqadda Carabiga aanu degdeg u barano si haddii aanu Itoobiyaan nahay aanu dib idinku soo celino jidka toosan ee diinta Islaamka. Ra'iisul wasaaraha Itoobiya Dr. Abiy Ahmed ayaa lagu wadaa inuu la kulmo kumanaan ka mid ah jaaliyadaha ka soo jeeda dalka Itoobiya ee ku sugan magaalada Washington iyo gaarkeeda isagoo sidoo kale booqan doona magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota oo ay ku nool yihiin kumanaan Soomaali ah iyo sidoo kale jaaliyad tiro badan oo ka soo jeeda qowmiyadda Oromada. aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Barre aadan oo inala socodsiinayay warbixintaasi ku saabsan ra'iisul wasaaraha Itoobiya Dr. Abiy Ahmed oo booqasho ku jooga dalkan Mareykanka oo saacado yar ka hor la kulmay jaaliyadaha kala duwan ee ka soo jeeda dalka Itoobiya halkaad kala socoteen waa laanta afka Soomaaliga ee VOA.